asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa daalacan miidiya. daawadayaal meel kastoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. fadlan saar subscribe kadibna riix gambaleelka mahadsan. daawadayaal mar kale kulan wanaagsan. xubinteen waxaynu ku soo qaadanaynaa xarunta nukliyeerka Israa'iil oo laga helay buufinada ama balooniska ololka bixiya. baloonada ama buufinada olola ee ay caanka ku yihiin dagaalamayaasha reer Falastiin ayaa laga helay magaalada Dimona oo ay ku yaalaan warshada laga dhaliyo nukliyeerka Israa'iil. telefishinka Press TV website-kiisa ayaa waxa uu ka soo xigtay warbaahinta Israa'iil inay sheegeen inay buufinadaasi laga yaabo inay ku jiraan waxyaabaha qarxa isla markaana laga helay warshada nukliyeerka ay ku taala magaalada Dimona. booliska u tababara waxyaabaha qarxa ayaana loo yaray si ay u kala furfuraan baloonadaasi oo laga yaabo inay waxyaabo qarxa ku jiraan. magaalada Dimona oo ay ku yaalaan warshada laga dhaliyo hubka nukliyeerka waxay ku taala bartamaha labadegaanka Negev oo in ka badan 700 kilomitir u jirta deegaanka marinka qasa ee dhulka Falastiin. Israa'iil waxaa la sheegay inay haystaan 200 ilaa 400 madaxyada lagu rakibi karo hubka nukliyeerka. maamulayaasha Israa'iil waxay hore ugu gacan saareen in ay wafdi ka socdo wakaaladda qaramada ugu qaabilsan tamarta atomikada ee lagu magacaabo The International Atomic Energy Agency ee loo soo gaabiyo IAEA inay baaritaan ku sameeyaan nukliyeerka Israa'iil. daawadayaal xubinta kale aynu ku soo qaadanayno waxa ay ku saabsan tahay amaba ayna kaga hadli doonaa dowladda Japan oo soo saartay amar lagu soo xirayo askari hore ugu tirsanaa militariga Mareykanka. maamulayaasha dalka Japan waxay maanta soo saareen amar ama waara lagu soo xirayo askari hore u tirsanaa militariga Mareykanka iyo 2 nin oo kale kuwaas oo lagu eedeynayo inay u fududeeyeen madaxii hore shirkadda Nissan ninkii lagu magacaabo Carlos Ghosn inuu ka baxsado dalka Japan. qoraal ka soo baxay dacwada ogayaasha Japan waxaa lagu sheegay in eedeysanayaasha la amray in la soo xiro lagu kala magacaabo Barrett Michael Taylor, Georgia Anthony Zayik iyo Peter Taylor. waxaa kaloo amar lagu bixiyay in la soo xiro gudoomiye shirkadda Nissan ee farsamaysan gaadiidka ee dalka Japan Carlos Ghosn kaasi oo bishii hore si dhow Malaysia looga saaray dalka Japan wuxuuna haatan ku sugan yahay dalka Lubnaan oo asal ahaan ka soo jeedo. daawadayaal xubinteena ku xigtana waxa aynu ku soo qaadan doonaa Mareykanka oo shaaciyay magacyada askartii kaga geeriyootay diyaaradii dhowaan ku burburtay dalka Afghanistan. waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon waxay xaqiijiyeen inay 2 duuli ku geeriyoodeen diyaaradii maalintii hore ee la soo dhaafay ku burburtay gobolka Qasni ee bartamaha Afghanistan. 2 duuli ku geeriyooday shilkaasi ayaa waxaa magacyada lagu kala sheegay Colonel Paul K. Voss oo 46 jir ah iyo Captain Ryan S. Venoff oo 30 jir ah. dhinaca kale ururka Taliban waxay hore u sheegteen mas'uuliyadda burburka diyaaraddaasi. afhayeenka Taliban Zabiullah Mujahid waxa uu soo saaray hadal qoraal ku sheegay in iyagu diyaaradda soo rideen kuna geeriyooday dhammaan shaqaalihii rakaabka la socday oo ay ka mid yihiin buu yiri saraakiil muhiim ah oo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. waa sida hadalku dhigay muuqaalka burburka diyaaraddaasi oo uu ka muuqdo ama ay ka muuqato calanka ama calaamadda Mareykanka ayaa waxa lagu baahiyay baraha bulshada. daawadayaal xubinta ugu dambaysa waxaynu ku soo qaadanaynaa Russia oo xiri doonta xuduudka ay leeyihiin Shiinaha cabsida caabuqa coronavirus awgiis. ra'iisul wasaaraha Russia Mikhail Mishustin waxa uu soo saaray wareegto lagu xirayo xuduudka taasi oo qayb ka dadaalka lagu doonayo in looga hortago faafista caabuqa ka imaanaya dalka Shiinaha. shaqada dhexe caawa ayaa la sheegay in si rasmi ah loo xiri doono xuduudka Russia ay la wadaagaan Shiinaha. dowladda Shiinaha waxay sheegtay in kiiska ugu horeeyay ee caabuqa laga helay gudaha dalkooda iyadoo nin u dhashay Russia oo dhawaan socdaal ku tagay jasiiradda Hainan dalka Shiinaha laga helay caabuqa isla markaana haatan lagu daaweynayo isbitaal. dowladda Russia waxay kaloo hakisay fiisooyinka elektarooniga ee la siiyay muwaadiniinta Shiinaha laga bilaabo maanta oo Khamiisa sida lagu sheegay hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Russia. dhinaca kale tirada dadka caabuqaas ugu geeriyooday dalka Shiinaha ayaa waxay la sheegay inay haatan gaareen 170 qof halka in ka badan 7,700 oo kalena ay la ildaran yihiin caabuqaasi. daawadayaal xubnaha ku talagal waana waxaad kala socoteen daalacan media.